بسم الله الرحمن الرحيم هبا wanaagsan ku soo dhawaada wararka caawa ee Soomaalida ay hajibiyaan qodobada ugu waaweyn waxa kamida wabahayna kala duwan oo ka soo baxaya dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac oo ciidamada xoogga dalka iyo al-shabaab ku dhaxmaray gobolka Shabeellada Hoose madaxweynaha Somaliland oo Ethiopia ka bilaabay wada hadallo iyo kulamo uu la yeelanayo madaxda dalkaasi haddaba muxuu ahaa mowqifka uu cirro ka taagnaa markii uu mucaaradka ahaa heshiiska badda iyo guddiga doorashooyinka Soomaaliya oo shaaciyay jadwalka cusub ee doorashada qof iyo codka ah ee Muqdisho dhamaan wararkan oo faahfaahsan ayaan idinku soo gudbin doonaa wararka caawa ee Soomaalida ee HBN dhamaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool qurbaha ee danaynaya barashada culuumta shariicada islaamka qaybaheeda kala duwan waxa loogu bishaaraynayaa in macadka Ibnu Cabbaas uu soo kordhiyay qayb cusub oo online ah waxaana kamid ah culuumta shariicada oo ilaa 6 qaybooda barashada af Soomaaliga iyo Carabiga Quraanka Kariimka dadka waaweyn iyo caruurtaba kasixidda carabka ruuxa dhigtay hadda koor higaada Carabiga oo ilmaha si fiican loo fahamsiin doono insha Allah iyo culuumta kale ee Quraanka haddii aad degan tahay magaalada Nairobi macadku waxa uu diyaar idin leeyahay macallimiin guriga kuugu iman karta faahfaahin dheeriya la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqda soo dhawaada markale daawadayaal wararkana waxaan ku bilaabi doonaa faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xogan oo maanta ka dhacay degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose halkaasi oo dagaalku u dhaxeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo al-shabaab kadib markii sida la sheegay ay kooxdu soo weerareen saldhig ciidamadu halkaasi ku lahaayeen dagaalka oo socday muddo saacada ayaa waxa uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ila military ayaa sheegay in dagaalka lagu dilay ugu yaraan 8 xubnood oo ka tirsan al-shabaab halka 3 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku dhinteen 5 kalena ay ku dhaawacmeen dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ciidamada xoogga dalka gaar ahaan guutada 14 Oktoobar ay howlgal qorsheysan oo ay ku tilmaameen sifayn ay ka fuliyeen tuulooyin hoostaga Janaale kuwaasi oo ay ku burburiyeen doomo al-shabaab ay ugu kala gudbi jireen webiga iyo goobo ay shacabka ay ku cunaqabateen jireen sida hadalka loo dhigay howlgalkan ayaa waxa uu ka dhacay tuulooyin dhowr ah oo 4 gaaraya kuwaasi oo la tilmaamay in kooxda al-shabaab halkaasi lagu beegsaday goobo ay ku sugnaayeen waxaana kamid ah deegaanka Malable Beerabay Sigaale Bari iyo sidoo kale doonka Daafeedow iyadoo oo ciidamadu ay xaqiijiyeen in Janaale ay wali ku jirto gacanta dawladda isla markaasina la wado dhaqdhaqaaqyo amni oo lagu sugayo xasiloonida deegaanka weerarkan ayaa waxa uu qayb ka ahaa weeraro isdaba joog ah oo ay kooxda al-shabaab ay ku beegsatay dhowr jeer oo hore ee gobolka Shabeellada Hoose fariisimo ciidamada dawladda Soomaaliya inkastoo ciidamada dawladda Soomaaliya ay maalmihii ugu dambeeyay ay wadeen howlgallo iyo sidoo kale kooxda al-shabaab oo laga qabsaday deegaano dhowr ah oo ay ku jirto degmada Owdegle oo ugu dambeysay iyo bariire oo ka horeysay markaan Addis Ababa madaxweynaha Somaliland ayaa waxa uu Ethiopia ka bilaabay wada hadallo iyo kulamo oo la yeelanayo madaxda dalkaasi iyadoo oo ka soo baxayaan faahfaahino kala duwan madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa caasimadda Ethiopia kadib martiqaad rasmi ah oo uu ka helay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed Cirro iyo wafdigiisa oo uu soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia Gideon Timotheus ayaa waxa xigi doona kulamo la yeelanayo madaxda ugu sareysa dalkaasi sida ay ku sheegtay war-saxaafadeed ay soo saartay madaxtooyada Somaliland kulamadan ayaa waxa lagu wadaa in lagu gorfeeyo arrimo ay kamid yihiin xoojinta iskaashiga labada dhinac kor u qaaditaanka ganacsiga iyo sidoo kale arrimo kala duwan sidoo kale wafdiga madaxweynaha ayaa waxa uu ka kooban yihiin mas'uuliyiin sare oo ay kamid yihiin wasiirka arrimaha dibadda madaxtooyada maaliyadda howlaha guud iyo maalgashiga taliyaha ciidamada Somaliland iyo sidoo kale agaasimaha hay'adda sirdoonka ee Somaliland safarkan ayaa waxa uu imaanaya xilli Ethiopia ay wajigabax heer caalami ah ay kala kulantay heshiiskii muranka dhaliyay ee ay la gashay xukuumaddii hore ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sanadkii hore heshiis ay dawladda Soomaaliya ay ku sheegtay in uu xadgudub ku ahaa midnimada iyo madaxbanaanida dalka kaasi oo madaxweyne Cirro uu markii uu hore su'aalo adag u duldhigay intii uu ku jiray
ololaha doorashadiisa dhanka kalena xisbiga kulmiye ee mucaaradka noqday ayaa madaxweynaha cusub ugu baaqay in uu safarkiisa uu ku daro ka hadalka arrimaha badda si uu u caddeeyo mowqifka Somaliland ee ku aadan heshiiskii hore xisbiga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in laga filayo Ciro in uu ilaaliyo heerka iyo miisaanka cilaaqaadka Ethiopia ayna muhiim ay tahay in safarkiisu uu noqdo mid ka turjumaya danaha guud ee shacabka Somaliland safarka ayaa si dhow isha loogu wada haya ama in loo indhaynaya maadaama uu noqonayo tijaabo diblomaasiyadeed oo muhiim ah oo lagu qiimeyn doono jihada cusub ee xiriirka Hargeysa iyo Addis Ababa safarkan madaxweyne Ciro ku tagay Ethiopia ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli 2 maalmood ka hor madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo magaalada Addis Ababa caasimada Ethiopia kula kulmay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed labada hogaamiye ayaa yeeshay wada hadallo diradda lagu saaray xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee u dhaxeeya labada dal xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa soo hagaagaya taniyo markii ay dawladda Turkigu ay dhexdhexaadisay labada dhinac kadib markii khilaaf iyo xiisad ay ka dhalatay isfahamka Somaliland iyo Ethiopia ay wada gaareen haddaba dhanka kale madaxweynaha Somaliland muxuu mowqifkiisu ahaa markii uu mucaaradka ahaa Cabdiraxmaan Ciro ayaa waqtigii uu ahaa musharaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa uu taagnaa mowqif ah in xukuumadda waqtigaasi uu hogaaminayo Muuse Bixi ay bulshada u soo bandhigto isfahamka lana mariyo baarlamaanka madaxweyne Ciro oo warbaahinta weydiisay bishii Oktoobar ee sanadkii hore markaa uu ahaa musharax xisbiga wadani ah mowqifkiisa ku aadan isfahamkii Somaliland iyo Ethiopia haddii doorashada uu ku guuleysto ayaa waxa uu sheegay in ay sii wadayaan isfahamkaasi isla markaasina la marinayo dariiqa sharciga ah dawladaha ay qusayso ay kala hadli doonaan muddo ku dhow 2 sano ayaa laga joogaa markii ay Somaliland iyo Ethiopia ay kala sixdeen isfahamka sheegay in Somaliland iyo Ethiopia ay ka kireyso Somaliland ay ka kireynayso dhul dhan 20 kilomitir oo xeebta ah isla markaasina Somaliland ay ku bedelanayso aqoonsi وتهي وحي كسو كردha wararkaasi safarka madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo wafdigiisa oo Addis Ababa jooga waxaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijyadeena iyo wararkeena dambe hadii Allah awood leh oo raali ka noqdo iyo boga internet-ka aan ku leenahay ee hbnonlinetv.com ugu dambeyntiina guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxa ay shaaciyeen jadwalka cusub ee doorashada qof iyo codka ah ee Muqdisho guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa maanta waxa ku dhawaaqay jadwal cusub oo la xiriira doorashada qof iyo codka ah ee dalka kadib markii wax ka bedel uu ku yimid hanaanka doorashada ee qorshaysnaa xilligaasi gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Cabdikariin Axmed Cali oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in doorashada golayaasha deegaanka ee Muqdisho la qaban doono 3 November 2025 taasi oo noqon doonta mid toos ah oo shacabka caasimadu ay ku dooran doonaan hanaankooda deegaanka sidoo kale Cabdikariin waxa uu xusay in ololihii diiwaangelinta si guul leh uu ku dhamaaday isla markaasina ku dhawaad 1 milyan oo qof iska diiwaangeliyeen Muqdisho waxa uu shacabka ugu baaqay inay isu diyaariyaan cod bixinta halka ururada siyaasadeedna uu ku adkeeyay in ay soo buuxiyaan shuruudaha sharciyeed iyo sidoo kale sumadaha rasmiga midna shacbiga laga rabaa oo maanta afar u diraya shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool gobolka Banaadir November 3keeda qof walba oo maanta fiirinaya calendarka qof walba oo fiirinaya maanta TV-ga qof walba oo social media ka arka walaalayaalow Soomaaliya waa ka soo daashay xilligii qofkii marka uu qof kale uu fahmi waayo oo disagreement timaado qol la isku qaadan jiray laga soo gudbo maanta waxaan maraynaa in lagu kala ciil baxo oday maanta waxay joogtaan xilligii codkii la maqli lahaa maanta dad ku dhow 1 million people ayaa ka diiwaan gashay gobolka Banaadir November 3keeda waxaan idinka codsanaynaa meel kastoo joogtaan dadka isdiiwaan geliya inay isku diyaarisaan inaan ururadan sharafta leh aad kala xolataan isku diyaarisaan inaad ka soo qayb qaadataan golaha deegaanka doorashada soo socota hadii raali ka dhigo midna shacbiga laga rabaa oo maanta afar doorashadan ayaa dib u dhacday jadwalkeedii hore marka loo eego ku qorshaysnaa bisha October dhamaadkeeda kadib markii dib loo furay diiwaangelinta iyadoo weli Jubaland Puntland iyo mucaaradka madasha samata bixintu ay ka hor imaanayaan nidaamkan doorashada qof iyo codka ee dawladda Soomaaliya ay wado
waayahay qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararka caawa ee Soomaalida oo idinkaga imaanayay studiyaha Muqdisho ee HBN wararkeena waxa aad kala socon kartaa boggeena kala duwan sida Facebook, YouTube, Twitter ama X iyo sidoo kale bogga internetka aan ku leenahay ee hbnonlinetv.com inta ka horeysa nabadgelyo bishaaro ma doonaysaa in waalidkaaga oo dhintay ama geeriyooday ama xanuunsan oo sariiryaal ah in lagaaga cumreeyo inta lagu guda jiro bilaha xurmada leh wax ka yar $300 ayaa lagaaga cumreynayaa waalidkaaga waxaana fursaddan qaaliga ku siinaysaa shirkadda xajka iyo cumrada ee taqwa oo ku samaysay qiimo dhimistan ballaaran waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cimradu u dhacday waxaana shaqadan qabanaya culimo aqoon u leh haddaba si aad uga faa'iidaysato fursaddan qaaliga ah la soo xiriir shirkadda xajka iyo cumrada ee attaqwa xajan cumra adigoo kala soo xiriiraya taleefanada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah